dhiiran waxa weeyaan madal ay iskugu tageen gabdho Soomaaliyeed oo loo sameeyay loo asaasay platform ah inay gabdhuhu danahooda iyo aayahooda uga tashadaan iyo dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed soo falsaara dhiiran waxay gabdhaha Soomaaliyeed u tahay madal wax badan u qabata ayagoo aan markaas cidna ka sugan inay wax qabsadaan laakiin ayagu waxooda qabsanaya xalisanaya haday ahaato tacadiyo haday ahaato dhibaato dhaqaale haday ahaato aqoon ahaan haday ahaato fakarkooda haday ahaato future-kooda iyo mustaqbalkooda meelaha ay rajaynayaan intaba waxay u tahay mid ay horumar kaga gaari karaan gabdhaha Soomaaliyeed dhiiran aniga samsam ahaan waxaan jecelahay badbaadada gabdhaha iyo safety-ga gabdhaha waxaan aragnaa in badana marar kasta gabdhaha ay ku dhacaan tacadiyo ama dhibaatooyin in ay gabadhu in ay meel kasta ay joogto haday waxbarasho aado haday shaqo aado haday magaalada u soo baxdo meel kasta ay joogto gabadhu inay comfortable ku tahay oo ay dareemayso nabad amaan xasilooni iyo wanaag ay ku dareemayso marka waxaan jecelahay in aan ka hadlo gabdhaha iyo sidii ay u ilaashan lahaayeen amaankooda iyo nabadgelyadooda waxaan fariinteedu ay tahay inaysan gabadhu kaligeed socon inay hadiyo jeersi ka haysataa gabar saaxiibadeeda ama qof faamilka si ay u yaraato dhibaatooyinka soo gaari karta isla markaas gabadhu waa in ay waxyaabaha ku dhaca oo dhibaatooyinka waa inaysan gabdhuhu qarsan waa inay soo bandhigaan waa inaysan waxa jirta dhaqan aan leenahay ama caado aan leenahay oo gabar baa tahay wixii kugu soo dhacay ama ku gaaray hadii aad sheegto bulshada waxay dhaasaa ceebay u arkasa oo inay nafsad ahaan u sameeyo laakiin dhibta ku soo gaartay ama xuwaanta ku soo gaartay ceeb ma ahan wixii lagu sameeyay ayaa ceeba waa inaad si cad oo waadax oo bareera aad uga hadli kartaa xuquuqdaada u doonan kartaa dhibta ku soo gaartay meel u saari kartaa sharciga oo la tiigsan kartaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay yimaadaan dhiiran waa madal gabdha Soomaaliyeed iskugu tageen ayna u furteen ayagu danahooda inay uga hadlaan gabar kasta u furan tahay inay uga hadasho aayaheeda mustaqbalkeeda iyo caawinta bulshadeeda dhiiran waxay u socotaa in ay waxyaabo badan oo bulshada dhibaatooyinka ka dhex jira ama arrimaha bulshada inay ka shaqeyso